رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي با سبحانه وتعالى ما هدي أمام بمضن الله سبحانه وتعالى منعمك إنه نعمين نعموين ينسوكو بكرين نعموين كاسو أي كمتهاي أو نصر رئيس نعمة إيمانك يا إسلام نمضو. إلهي سبحانه وتعالى نعم كيس وحكمدا أن جعل لنا محطات خير نتزود منها. إن إلهي إنه يليك المخير وإنه كسهي قادنه وإنه كسهي قادنه للقاء الله والوقوف بين يديه. إلهي سبحانه وتعالى لكل كيس يهورستاقيس وحكمدا كالمها قالقا إلهي سبحانه وتعالى إنه نعميي يا رب سبحانه وتعالى وشرعي يسوع دومي سودا بدافو رحمتي صون ما يسترنا يوسو قادو رب سبحانه وتعالى إن بدنا كم إذا سوء قوره دنارته وقحرأيه وحكم إذا بشر رمضان قالقا وفرصة آديات قالي وقفك مسلم كاهي رمضان واركو قرماها inay tahay takaaliif sharciya culaysyo la saaray waxyaaba marka hore xalaal u ahaa laga mamnuucay oo loo diiday. ramadaan qofka muslimka waa inuu arko inay tahay fursad qaaliya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu nicmeeyo ugu suurtageliyey. haddii aragtidu ay sidaasi noqoto waana aragtida saxda ah waxaa dhacaysa qofka muslimka ahi ramadaan inuu ula dhaqmo oo ula tacaamulo sida saxda ah iyo inuu uga faa'iidaysto sida ay waajibka tahay in looga faa'iidaysto. bisha ramadaan waa bil ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay shahra tagayur, waa bil isbedello fara badan baa caalamkan ka dhaca, caalamka sare iyo caalamka hoose. nafaha dadka muslimiinta iyo quluubtoodana isbedelaa ku dhaca. wuxuu inoo sheegay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam mar allaaliya markay ramadaan soo gasho in la furo albaabada samada. kaasi waa isbedel weyn oo xagga sare ka dhacaya. sidaas oo kale in la xidho albaabada naarta waa isbedel xagga hoose ka dhacaya. in la furo albaabada jannada iyo raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala kaasina waa isbedel xagga sare ka dhacaya, waayo jannadu xagga sare ayay ku taallaa. wuxuu inoo sheegay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam annahu tusafadu maradatu shayaadiinta kuwooda madaxa adag ee mar walba u taagan luminta dadka muslimiinta ah iyo hallaabinta bani aadamka in la xidhxidho laga xidhxidho dadka muslimiinta ah ee bishan qaaliga ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudaya ee rabbi u soomaya ee salaada u tukanaya cibaadaadka kalena ku dadaalaya. taasina waa isbedel dhulka ka dhacaya. wuxuu inoo sheegay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam in malaa'igta u tirada badani habeen ramadaan ka mid oo laylatulqadri la yidhahdo dhulka ay usoo dhaadhacaan. kaasina waa isbedel weyn oo bishan dhexdeeda dhaca. waxaa ku jira bishan dhexdeeda habeenka la yidhaahdo laylatulqadr, habeen sharafeedka ah. ilaahayna subxaanahu wa tacaala si gooniya uu u qadaro waxyaabaha sanadkaasi dhacaya iyadoo qadarka ilaahay ee guud uu horreeyey. innaa anzalnaahu fii laylati alqadr wamaa adraaka maa laylatu lqadr laylatu lqadri khayru min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
وهبينكو إلهي سبحانه وتعالى بلا بيسو دجينت القرآن الكريم كو هذا الكيس قيمها بدن إلهي سبحانه وتعالى هبينك وحب بحي مقعات سنة يقال نمديس والقدر وبمعنى الشرف والعلو وهبين شرفات وهبين صراحة إلهي سقوا وينين يوددك كسو تشيدين يوحلوا وما أدراك ما ليلة القدر محاد كوكتها وينيدا إيا قيمها بينك الأولية إلهي بات جوابوري ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر قواها بين عملك صالح على السمايو أما فرلها النقضة أما السنة النقضة وكخير بدنيا هاي عملك صالحة إلا متكاه إلا السمايو كم بلود قدهود taasina waxay tusinaysaa qiimaha iyo qadarka habeenkaasi uu leeyahay iyo fursadda qaaliga ee ugu jirta qofka muslimka ah ilaahay wuxuu sheegay isbedel habeenkaasi dhexdiisa dhacaya tanazzalu almalaa'ikatu waruuh malaa'ikta habeenkaas soo daadegta waxa kaloo soo daadego malaa'ikta la socdo malaku jibriil oo malaga malaa'ikta ugu sharafta iyo fadliga badan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ma jira habeen malaa'iktu ay dhulka kaga badan tahay habeenkaasi la yiraahdo laylatul qadriga waa isbedel weyn oo bisha ramadaan dhexdeeda dhacaya isbedelada bisha ramadaan dhexdeeda dhaca waxa kamid ah ahkaam badan baa isbedesha salaad la yiraahdo salaatu tarawih ama salaatu layl fi ramadaan ayaa la sharciyeeyay in jamaaca lagu tukado bilaha kale iyo habeenada kale jamac laguma tukado qof waliba goonidiisa ayuu tukadaa laakiin bishan si gooniya loo sharciyay dadka muslimiinta ahi jamaaca ay ku tukadaan fadli weyn waa loo sheegay waman qaama ramadaana iimaanan wahtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qofka bisha ramadaan salaatul layl tukada isagoo sharcinimadeeda rumaysan iyo sunnanimadeeda الله سبحانه وتعالى خالقنا أجر يا حسنات يا أبا الملك قدونايا وحي الدنبي هرو السماء الله ضعف أبو النبي عليه الصلاة والسلام ويسبدل حق أحكامته وخلائق ذا نحو ذا كدعي بشهر رمضان يسبدل هذا دعوة حكم ذا وحمال انت رمضان مركه ورح حلالها أي حكم كيسو يسبدلا وحاران يسبدلا waxa allaaliyo waxa soomka jeliyo oo dhan weey wixii markii hore xaaraanaha xaaraanimadoodu way sii adkaanaysaa waxyaaba markii hore xalaalaha waxyaaba mufattiraadka la yiraahdo ama mubtilaatu mufsidaatu sawm waxyaaba soomka buriya maalinta ramadaan oo dhan xukunkoodu wuu isbedelayaa halkii xalaalka aan jireen isticmaalkoodu xaaraan buu noqonayaa ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala wakuluu washrabuu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل رب سبحانه وتعالى هبينك عنا وعبا وحيابا قفك الصومان الله أقولين ودن سماء يبولي إلا واغ إنو برياء أيدين عدانسو ثم أتموا الصيام إلى الليل وقت قال لك قارو وحيابها سيوردن كاف حدنادا وكالصومانادا iyadoo niyo cibaadaysi ay idin la socoto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku weyneynaysaa aad ku caabudaysaan rabbina subxaanahu wa tacaala aad ugu dhowaanaysaan waa isbedel weyn oo dhacaya dadka muslimiinta naftooda isbedel baa ku dhaca waxaa ku dhaca ciddii ilaahay khayr la doonay naftoodu inay khayrka jeclaato cibaadada dhadhankeeda iyo macaankeedana inay hesho quluubta dadka ayaa isbedesha وعبادة جعيل يا خشوع يا دردمين عبادة قلوبته أي دردمين أيسو أيا كل عذا إقبال المؤمنين على الخير اسبدل الله دعوة حكم ذا تدك المؤمنين تاي خير كيسو قابلا إيا قواء تشيبا إيا كإلهي سبحانه وتعالى ودرو رمضان مركا أي بلاتو كاسو أولانا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر خير قفكي دوني وقتي سواكا فرصدي سي قالي قاعد أيا تاغن سو قابل شر يحمان قفكي وجهدونا قابصو دواقاسي كجوابان إن فربضان
وكمد مسلمين تا إلهي كبق سبحانه وتعالى وينية سنبانا أجعل إلهينا سبحانه وتعالى حليل في عن الله خير كأي قابلان مالنتي بيسوميان قرآن كيخلصانيان وانا دقيستريان حسك إلهينا سبحانه وتعالى ويفر بديان صدقات وحي وقسور توبا أي بحنيان هبين كينا صلاة الليل كأي تكنيان أما مساجد هذا هاتقان أما قريو ذا كنت كذان قارهان دومركا أرنت نوعاسي وحي أستانية على مدوتاي اسبدل وين ونفاها كدعي بشهر رمضان دحديدة اسبدل لذا نوعاسا فراها بدن بشهر رمضان قف كستو مسلم أوفير صدقوا وقريا وهي علامة أستانويهين إن قفك مسلم كإلهي رمضان وسوق جارسيين إنه يسوون يسبدل سماعي أدون كنا هديو دونيو إن إلهي سبحانه وتعالى حال كيسا وناتشيو وحالات ديورا حالات كوناكسا إلهي إنه جارسيو أضيتها حق إيمان كيسا يا أضيتها عبادة ديسا أخلاق ديسا يد بيعد ديسا دلدقن كيسا يتوسنان تيسا وين أرتيسا يسبدل لك هيرو إلهي بانا سبحانه وتعالى تاينو الشاقي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهي قومنا حال كودا مبدلو إلا إيقو حال كودا يبدلان هذه حال كاقوها إيمان ضعيفة هي عبادة يران حال كاقو هدوها ذكر إلهي أو كوير حال كاقو هدوها أخلاق ذات يدقن كاقو وناك سنين حال كاقو هدوها إن أنا إلهي دين تيسا كنتو صنين برشده دا واجبك كوغوا أنا دو سو تشيرين كودقن كيدا إيا إنتا أبو تاليسو كمامل كيدا هدي أدون يسو حال كاسوا حال حنة إلهي سبحانه وتعالى إنو كاررو ومد كوناكسن أما مد وناكسن إلهي إنو كوررو حالة دا وناكسن أتكتير مد كسي وناكسن إلهي إنو كوررو هدي أتشعشاهي isbedel kuwa inuu xaggaaga ka yimaado oo adigu waa inaad go'aansato inaad xaalkaaga isbedel ku samayso marka aad go'aansatana ilaahay waa inaad tala saarato rabbina subxaanahu wa tacaala waa inaad kaalmo weydiisato ilaahay baa yidhi fa idaa cazamta fatawakkal cala allah marka aad go'aanka wanaagsan gaadho awooddaada iyo xeeladaada ha isku hadlayn ilaahay tala saaro oo rabbi subxaanahu wa tacaala cusko arrinkaaga u dhiib kalsooni dhammaystiranna ilaahay subxaana wa tacaala ku kalsoonow nabigeennuna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuka adigaa dadaal lagaa rabaa aada xaalkaaga ku wanaajinayso oo noloshaada aada kaga dhigayso nolosha ilaahay uu kaa doonaayo ee rabbi subxaana wa tacaala uu jecel yahay rabbi subxaana wa tacaala raallida uu ku yahay qofka nolosha yeeshana ilaahay raalli uu ka noqonayo rabbi uu jeclaanayo ilaahay uu nicmaynayo adduun iyo aakhiraba ilaahay uu barakaynayo rabbi subxaana wa tacaala uu xifdinayo oo uu wanaajinayo wastacin billah buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dadaalkii ha lagaa helo laakiin dadaalkaaga quraha isku hadlayn ilaahay bari subxaana wa tacaala hanuun ilaahay weydiiso ihdina siraata almustaqiim dheh إلهي سبحانه وتعالى كالمه ويديسو إياك نعبد وإياك نستعين معنا هذا وفيرسو إله وأديك وقرآن كالمك ويديسنيا كعل على الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام نبي الصلاة كسته دبدت وكنت عيسى شري اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إله ويقول كالمه ذكرك يحسكك inaan ku xuso noqdo addoon dikri badan ilaa waxaad igu kaalmaysaa mahadnaqaaga inaan kuu mahadnaqo oo nicamka faraha badan aada siisay kuwa ii muuqdiyo kuwa iga qarsoonba inaan kaga jawaabo ammaan ilaahay oo aan ku ammaano iyo mahadnaq ilaahay oo aan kuu mahadnaqo ilaa waxaad igu kaalmaysaa cibaado wanaag mid cibaadadiisu xagga qalbigana ay ka wanaagsan tahay ilaahu iga dhig oo marka uu cibaadaysanayo qalbigiisu uu yahay sidoo ilaahay arko oo kale
hadduu darajada hoos uga daadegana uu cibaadaysanayo isaga oo yaqiinsan ilaahay inuu arkayo xaalkiisa uu la socdo, taana waxaa ka dhalanaysa cibaado wanaag. haddii markaa taasi ay raacdo weliba in cibaadadu dushana ay ka wanaagsan tahay oo qofku cibaadada uu kaga dayday nabigeeni Muxamed calayhi salaatu wasalaam. waa ka ilaahay watawakal cala alcasiizi alraxiim alladii yaraaka xiina taquum wataqallubaka fi saajidiin. ilaahay wuxuu ina xusuusinayaa salaada marka aynu tukanayno ilaahay inuu ina arka subxaana wa tacaala, markaad istaagto, markaad rukuucdo, markaad sujuuddo, markaad soo kacdo, wax allaaliyo waxaad akhriyaysana ilaahay subxaana wa tacaala wuu maqlaya. marka dareenka noocaasi qalbigaaga inuu galo ayaa lagaa rabaa, markaasaad noqonaysaa qof cibaado wanaag ku sifoobay. isbedelo fara badan ayaa qofka muslimkaa laga rabaa in bishan Ramadaan dhexdeeda naftiisa uu ku sameeyo. isbedeladaasi waxaa ka mid a qofkii dembiyo isku ogaa iyo khaladaad. bani aadamkana dembiga asal u ah, innahu kaana daluuman jahuula. intaa waynu khaldamaynaa har iyo habeen, mar xaqa ilaahay baynu ku gafaynaa, markaa khalqiga, marka nafteenna. allah ina abuuray xogogaalka inoo abaatahay noo sheegay, yaa cibaadi inakum tukhti'uuna billeyli wannahaar waana akfiru dunuuba jamiica fastakfiruunii akfir lakum. ilaahay wuxuu leeyahay addoommahaygow har iyo habeenba waad dembaabaysaan oo waad gafaysaan, laakiin ilaahay raxmadiisa iyo nicmadiisa waxaa ka mid a in addoommaha intaa dembaabaye gafaaya haddii ay soo noqdaan oo ilaahay ay subxaana wa tacaala u toobad keenaan, in ilaahay dembiyada u dhaafayo, kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba. khaladka iyo gafka qofku naftiisa uu ku og yahay waa inuu aada iyo aada ugu fiirsado. taasina waxay ku imanaysaa inuu qofku naftiisa xisaabiyo oo qofku isagu isqiimeeyo, miisaanka uu isa saaro oo uu idhaahdo talo maxaa iga khaldan, qalbigayga maxaa ka khaldan oo ka xun, wax xun oo ilaahay aanu raalli ka ahayn talow qalbiga miyaan ku hayaa, xasad miyuu qalbigaygaga jiraa, dadka aan xaasido, cuqdad iyo caloolxumo adduunyo iyo dheefta nafta ka dhalatay talow qalbigayga miyay ku jirtaa, qalbigayga talow khafladi miyay ku jirtaa. waa inu idhaa qofku miyuu ilaahay moogan yahay qalbigaygu iyo daarul aakhira, oo yahay mid aan xusuusnayn oo kasii jeeda oo adduunyo uun ku foogan. qalbigayga hawa raacnimo miyay ku jirtaa, qofku waa inuu isweydiiyo. itibaacu hawa macnaheedu uu yahay qofku inuu sameeyo waxa naftiisu ay jeceshay u yeedhiso, isagoon kala eegin waxaasi ma wax ilaahay uu raalli ka yahayba mise waa wax ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaya oo rabbi aanu ogolayn. cudurrada markaa qalbiga ku dhaca aad bay u badanyihin. waxaa ka mid a alriya, inuu qofku acmaasha wanaagsana ilaahay loogu dhowaado uu sameeyo iyadoo ujeeddadiisu ay tahay dadku inay arkaan oo ay ammaanaan ama iyaga inuu wax kaga helo. marka qofku waa inuu qalbigiisa sidaa miisaanka u saaro. carabkaaga miisaanka saar oo qiimee, maxaa ka khaldan talo, bal waxaad ku hadasho oo dhan dib u eeg. maxaad ku hadashaa? miyaad ku hadashaa wax ilaahay uu kaa xaaraantimeeyey? miyaad dadka caydaa? miyaad dadka nacdashaa? dadka miyaad xamataa? dadka miyaad isku dirtaa ood iska hor keentaa? miyaad ku hadashaa wax shara sida shirki oo kale, ilaahay cid aan inaad barido, ama aad magan gasho, ama aad gurmad weydiisato xaaladdu maray kugu adkaato, ilaahay cid aan ahayn miyaad ku dhaarataa? miyaad afkaaga kaga hadashaa ood ku cibaadaysataa cibaadaad iyo dikriye nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu samayn oo ilaahay subxaana wa tacaala aanu ugu dhowaan? carabkaagu miyuu yahay mid ka gaabiyey ammaanta iyo xuska ilaahay? ma akhridaa ducooyinka soo arooray ee nebigeenu ina baray subaxii inaynu akhrino, kuwa galabtii la akhriyo, kuwa guriga lagu galo, kuwa lagaga baxo, kuwa suuliga lagu galo, kuwa lagaga baxo, kuwa masaajidka lagu galo, kuwa lagaga baxo, marka la seexanayo kuwa la akhriyo, marka lasoo tooso kuwa la akhriyo, cuntada marka la cunayo, marka cunista la dhameeyo, mara cusub marka la xidhanayo, maalinkii oo dhan waxaa sidaa ugu quban oo ugu daadsan oo ku teedsan
adkaar laynoo sharciyeeyey oo la rabo mar walba carabkeenna inay ka qoyanaato. marka carabkaaga miisaanka saar, wixii ka khaldan si aad u saxdo. towbaddu waa sixitaan, wixii nafta ka khaldan la saxayo, khaladkii laga noqonayo. khaladku ilaahay buu kaa fogeynaya, shaydaankana waa kuu dhaweynaya. towbadduna xaggii ilaahay bay kugu soo celinaysaa, ilaahay bay kugu soo dhaweynaysaa. shaydaankii cadowgaaga ahaana way kaa soo fogeynaysaa. xubnahaaga oo dhan, indhahaaga, dhegahaaga, gacmahaaga, lugahaaga, dhammaantood wada qiimee oo xisaabi. maxaa ka khaldan oo khasaare ay kuugu soo jiidaan? wixii saxda ee wanaagsanaa maxay ka gaabiyeen oo aanay samayn? waa inaad miisaanka saarto. indhahaaga xaaraan miyaad ku eegtaa oo qadulbasarkii miyaad ka tagtay ilaahay uu ku amray indhalaabistii? ilaahay subxaana wa tacaala uhi waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna, dumarka muuminaadka indhaha ha laabaan oo ha ka laabaan ragga ajanabiga ka ah, maxaarimtoodiina aan ahayn, aswaajtoodii iyo saygoodiina aan ahayn. dhagahaaga ka waran, miyaad xaaraan ku dhegaysataa? intaana indhaha dhaafin, musalsalaadka iyadoo rabadaan lagu jiro waktigii khayrka badnaaya miyaad daawataa oo indhahaaga aad ku daawataa oo waktigaa qaaliga ah sidaa u kugu dhaafaa oo dabeetana aad ka mid noqotaa kuwa khasaaroobay bisha rabadaan ee fursadda qaaliga ahi ay ka luntay. dhagahaaga balqiimee, maxaad ku dhegaysataa dhagahaaga? muusig miyaad dhegaysataa? heese miyaad dhegaysataa? hadalka xun sharciga ilaahay khilaafsana dadku ay ku hadlayaan miyaad dhegaysataa? mise meesha lagu hayo waad ka kacdaa? xanta miyaad dhegaysataa? diradiraalaha miyaad dhegaysataa? beenta miyaad dhegaysataa? dhagahaaga maxaad ku dhegaysataa? qur-aanka iyo dhagahaagu siday isku yihiin? qur-aanka ma shidataa oo ma dhegaysataa? muxaadaraadka khayrka, waanada, cilmiga culimadu ay sheegayaana duuban ama laga sii daayo wasaa'il liclaam, warbaahinta, ama miduu qofku soo duubtayba ha noqdeen, sidaad isku tihiin? dhaguhu qiimeyn bay u baahan yihiin iyo xisaabin in lala dabagalo. gacmahaaga maxaad ku qaadaa? maxaad ku qabataa? iyaga laftooda waa inaad xisaabiso. ragga ajanabiga kaa miyaad gacan qaadaa oo aada salaantaa? waa dembi weyn. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaca zinaba uu ku tilmaamay, walyadu tazni wa zinaha albadshu uri nabigu calayhi salaatu wasalaam. gacantu zinay ku dhacdaa, zinadeeduna waa inay taabato meel aan loo ogolayn inay taabato. xoolaha dadka gacantaada miyaad ku khiyaamaysaa? miyaad ku xoogtaa? miyaad ku xaddaa? waxaasoo dhan waa inaad isweydiiso. gacantaadu kitaabka qur-aanka ma soo qaadaa? ma kala furtaa? ma rogrogtaa safxadihiisa oo marba mid ma akhridaa? lugahaaga laftooda qiimee. lugahaagu iyagaa ku sida oo ku qaada, gaadiidkuwa xaggey ku geeyaanaad ku tagtaa? waxaasoo dhan waa laga xisaabin doonaa. xubnahaasoo dhan waxa aad ku samaysaana 3 midkoodunbuu noqon doonaa marka aad si saxa oo dhaba aad ugu kuur gasho ee aad u qiimayso. ka koowaad wuxuu yahay khayrun yuqarribuka ila allah wayakunu laka ghaniima. khayr ilaahay subxaana wa tacaala kuu dhaweeya oo ghaniimo iyo sahay aakhiro kuu noqda. kaasi waa mid qofka muslimkaa ay tahay inuu ku farxo. ka labaadna wuxuu noqonayaa sharun yubciduka can illah subxaana wa tacaala wayakunu kiflan calaa dahrika yowma alqiyaama. wax shara xubnahaagaasi ay sameeyeen oo ilaahay kaa fogeeya subxaana wa tacaala oo rabbi uu kugu cadhoodo, maalinta qiyaamana noqda culays aada dhabarka ku sido ood qaadi kari weydo, la kici kari weydo. maalinta ay xaaladdu aadka iyo aadka ay u daran tahay. kaana waxaa kaala gudboon inaad aada uga xumaato oo aada ka murugooto, kadibna ilaahay subxaana wa tacaala aada uga toobad keento. arrinka saddexaad ee waxa qofku xubnihiisa uu ku sameeyaa uu noqon karaa waa lagwi. lagwiga macnihiisu waa maxay? lagwigu waa maa laa yanfacu fi dunya walaa fi laakhira, oo waxaan manfaco adduunyo xalaalana aan lahayn, sahay aakhirana qofka aanu noqon ahayn. hadalkaa lagwi noqda, qofka socodkiisa ayaa lagwi noqda, ficiladiisa iyo xarakaadkiisa iyo sakanaadkiisa lagwi noqda. lagwiguna qofka muslimka wax looga baahan yahay maaha. qofka muslimkaahi waa mid cumrigiisa aan dayicin, oon ku dayicin
waxaan waxtar u lahayn oo nabigeenna taladiisuu qaata ixris calaa maa yanfacuka wixii nafciyo waxtar kuu leh ku dadaal ayuu leeyahay nabigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam. macnaheedu waa maxay? wixii aan waxtar kuu lahayn sahay aakhira aan ku noqonayn, adduunyadana aan waxba kaaga tarahayn, cumrigaaga iyo waktigaaga ha ku luminin, wuu koobayo u dhammaan doonaaye. min xusni islaami lmari tarku maa laa yacni, qofka muslimka islaamnimadiisa wanaaggeeda iyo quruxdeeda waxaa ka mid a inuu ka tago uu ka fogaado wixii aan waxtar u lahayn. waxtar adduunyo oo xalaalana uma lahaa, sahay aakhirana u noqon maayo, wuxuu ilaahay ugu dhowaanayana ma aha. a'immadu hadalkooda aada bay u xisaabin jireen, iyaga oo ka duulaya qowlka ilah uhi maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. waxay ku hadli jireen wax qaniimo u noqonaya, wixii kalena si ay u badbaadaan way ka aamusi jireen. imaamu axmed raximah llahu tacaala markuu xanuunsado xataa taaha ayuu iska ilaalin jiray. markii la yihi maxaad sidaa u yeelaysaana wuxuu odhan jiray dooni maayo in lagu qoro buugga camalkayga lagu qoraayo wax wanaagsan waxaan ahayn, khayr waxaan ahayn. nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut. qofkii ilaahay iyo aakhira rumaysan khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso, sharna yaanu ku hadlin, laqwina yaanu ku hadlin. waxaan macno lahayn saxaifta camalkiisa laga buuxiyo oo su-aalla laga weydiiyo wuxuu u tarayaana aanay jirin adduun iyo aakhiro toona. qofku marka uu naftiisa sidaa u xisaabiyo, xubnihiisa iyo camalkooda iyo shaqadooda isagoo kelidiis xisaabinaya, mid uu u eego, maxaa la gudboon? waxaa la gudboon tasxiix wa taqwiim wa tacdiil wa tagyiir. waa inuu saxo wixii khaldan, wixii qallooca waa inuu toosiyo, wixii aan wanaagsanayn waa inuu bedelo, wanaagu ku bedelo. arrinka noocaasna magaciisa maxaa la idhahdaa? tawba. tawbada macnaheedu waa maxay? waa arujuucu ila allah, waa dembiyadii khaladaadkii ilaahay bay kaa fogeeyeene waa inaad dib usoo noqoto oo ilaahay subxaana wa tacaala aad usoo dhawaato. tawbadu waa inay qofka ilaahay daraaddii ka noqoto, xumaanta uu samayn jiray uu ka tegaayo waa inuu ilaahay daraaddi uga tago. waa camal wanaagsan, ikhlaas bay tawbadu u baahan tahay. inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa. tawbadu waa inay dhacdo fii waqti limkaan, waktiga laga aqbalayo qofka. oo haddii naftu cunaha ay kaaga soo ururto, albaabkii tawbadu uu kaa xidhmay, goora ay cunaha kaaga soo ururi doonto oo geeridu ay ku iman doontona garan maysa. idan marka aad fursadda haysato ka faa'iidayso, ilaahay u toobadkeen, tawbaddana dib ha u dhigin. marka ay qoraxdu ka soo baxdo halkaa maanta ay ka dhacdo ee caalamka isbeddelka noocaasi uu ka dhacana, dadka oo dhan gaal iyo islaam albaabkii tawbadu uu ka xidhmay, khalaas waa fursad dadka seegtay weeye oo dib aan usoo noqonahayn. waa inaad ka murugooto khaladkii iyo dembigaad gashay, waa inaad go-aansato inaanad dib ugu noqon, waa inaad ka dhex baxdo. wixii adigoo weli samaynayo faraha kula jira dee qof tawbad keenay ma tihid. tawbaddu waa khaladka in laga noqdo oo sida saxdaa loo noqdo oo ilaahay subxaana wa tacaala qofku xaggiisa u dhowaado, shaydaankana inuu kasoo fogaado. haddii dembigaagu uu yahay aada xubnahaaga ku gashay xaq bani aadam oo dad baad xamatay, waad cayday, si kalead carabkaaga ugu dhibtay, amaba se dhiigoodaad daadisay oo jidhkooda wax u geysatay, ama xoolahoodii wax ka mida baa kugu maqan. tawbadaada waxaa shardi u ah dadkaa xaqooda inaad u celiso, amaba se inaad qofkii u tagto aad tidhaahdo xaqaasaa igaga kaa maqane isaamax. haddii kale waxaad noqon doontaa maalinta qiyaame mufliskii uu ka warramay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam. uhi atadruuna man ilmuflis? ma garanaysaan muflisku qofka uu yahay? muflisku waa qofka inagu aan naqaano qof kacay, qof ganacsadaa ama xoola haysta ayuu ahaayo dabeetana wuu kacay. mufliska ma garanaysaan buuhi nebigu. saxaabadu waxay dhaha almuflisu cindanaa man laa dirhama lahu walaa diinaara walaa mataac. waa ka aan lacag iyo alaabtoona haysan ee wixii uu hayaba ay ka baxeen. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhaha walaakina almuflisa min ummatii man yaأti yowma alqiyaama bisalaatin wa siyaamin iyo cibaadaad kale, wayaأti waqad dalama hada waqad shatama hada wasafaka dama hada
وأخذ مال هذا مفلس كأمضى إذا كم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقف مال انت قيام العبادات لا إيمانية صلاة هي صوم هي خير السبيل كري لكن انت محوه لي ظلمي وكسميي ضدك هل كواحد تاجنا حقي سجاي وفعاي مدو ليجي سدادي مدو حوري سقاطي wanaagii si xasanaadkiisa dadka loo qaybinaya hadii wanaaggiisu uu dhamaado iyadoo xaqii lagu lahaa laga gudinna xumaanahooda la soo qaadayo dusha laga saaraya subhanallah waa xaalad adag weeye oo meel looga baxaana aan jirin laakiin qofku maanta fursad buu haystaa xuquuqda ku maqan waa iska celin karaa ama sacidii lahay ayuu ka dalbi karaa inay saamaxaan oo ay cafiyaan isbedelada uu waaweyn ee naga rabo bisha Ramadaan dhexdeeda kaas ayaa kamida dhab ahaanna waxa la oran karaa qofka bisha Ramadaan dhexdeeda isbedelka tawbada la yiraahdo aan samayn ee Ramadaan dambiyadii ay u soo gashay sidii isagoo wax xambaarsan oo loo dhaafin Ramadaan ay baxdo qofkaas waa qof khasaaray nabigeenu alayhi salatu wasalaam sa'id al-minbar thumma qala amin 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 منبركا وكخد بدين جري جمعة النبي عليه الصلاة والسلام وبحوا وكراي مركو سي كرايي صدح جير بوري آمين 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 صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام إلا هذا يروح يقول هذا علامات تؤمن يا رسول الله حد آمين وتني رسولك إلهي إلا وحو النبي الدعاء النبي آمين ويقول هذا ما يمقلهين النبي عليه الصلاة والسلام وحرياتاني جبريل وحقيقي من ملك جبريل نبي هو أركي نواقي سنوا مقليين صحابة سمي أركهين مناني مقلهين ملك جبريل ملك جبريل وحو يقولي فقال لي رغم أنف امرئ أدرك والديه فلم يغفر له فقل آمين فقلت آمين وحو يري واحد دلوبي وخساري نبهان وفك لبدي سي والد دولكو سو قاري وسببته لو قدام بدافن بالرجية سمفلك وسبيناي وهوار آمين لدي محمد أنا آمين بأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فخرج فلم يغفر له فقل آمين واحد دلوبه دبعان خساري وفك بشي رمضان يوصل الشيء رمضان أي بحري يدولي له قدام بدافن وحلو قدام بدافن ما السمين مرت توبت كانين أعماشي صالح هيدا دمداف كسبب نقول يسينا لما أنو إيمان أما مانع باتشري وحديدا يا أعماشا إن لقى أقبله ونفتي سكسوغان وهبار آمين للنبي محمد آمين بان يقول النبي عليه الصلاة والسلام هلا يسكيل عليه ولا علينا إن لقى من نقضى قوة خسارة آدك أوي رمضان انت يوصل الشيء رمضان أي بحدين لود دمدافين لما أنت إن إلهي وطوبت كأنه mana jiro qof aan toobad aan laga rabin qofka dadka u wanaagsan iyo ka dadka u liita dhamaantood toobad baa laga rabaa waayo ma jiro qof dhammaystiray wanaagii oo dhan muxuu baa ka maqan ama cilmi baa ka maqan ama amal baa ka maqan faral ha noqdo ama sunnah noqdo ama waxba ka khaldan hadalka ka khaldan qalbiga ka khaldan xubnaha ka khaldan walihada ilaahi subhanahu wa ta'ala toobada si guud buu dadka ugu yeeray ma kala reebin ilaahay وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلهي سبحانه وتعالى وحد المؤمنين إلهي والتوبة كيرا لما أنتين إلهي سبحانه وتعالى والتوبة كيرا سيادو اللي بانتان ودقوا ليستان اسبدل هذا بشهر رمضان لنا قربوا ولا ريال وحكم إذا إنه يسبدل قصمين إيمان كين إيمان قوة كرنا وانا نقصامة هصبوا دعا qof waliba isaga isqiimeyn kara darajada iimaankiisu uu taagan yahay qof waliba uu dareemaya inuu iimaankiisu sareeyo iyo inuu hooseeyo u dhacsan yahay nabigeenu alayhi salatu wasalaam uu inoo sheegay iimaanku inuu laabta qofka ku baaliyo qalbiga qofka inuu ku dhex baaliyo إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله يجدد الإيمان في قلوبكم إيمانكو باليوبا متكين قلبي يسو كلح باليوبا سامرادو أي أباليودو إلهي ويديست إنو إيمانك إذن عصبون يسير إلهي بينو ويديست إنو إيمانك إنو قويو إنو أنا عصبون يسير إيمانك محاب باليوية
waxa baaliyeeya waxa khaldan ee sharciga khilaafsan ee macsiya ee munkara ee qofku uu sameeyay marka dambana heer bay gaarsiiyaan ay baabiyaanba oo qofku faramanaan iimaankiisa uu ka soo istaago qof gaaloobay uu noqdo ciyaadan billahi subhanahu wa ta'ala min al-kufr ilaahay baynu gaalnimada ka magan galayna bisha Ramadaan waa fursad qaaliya oo qofku iimaankiisa uu ku xoogayn karo oo kor uu ugu qaadi karo oo ku cusboonaysiin karo oo qurux iyo qiimo ugu yeeli karo taasina waxay ku imanaysaa iimaanku muxuu ku qurux bataa muxuu ku xoogaystaa muxuu iimaanku ku kordhaa waxyaabo badan baa iimaanka ziyaadiya oo kordhiya oo kor u qaada waxaa ka mid ah qiraa'atu alqur'aan maca tadabbur inaad qur'aanka akhrido macnihiisa u fiirsanaya istimaacu alqur'aan inaad qur'aanka dhegaysato oo aad u dhag raariciso kathratu dhikri illah xuska ilaah inaad farabadiso oo qof mar walba xuska ilaah carabkiisa uu ka qoyay aad noqoto waxaa ka mid ah tadakkur al-aakhira qofku inuu aakhiro xusuusan yahay qofku hadduu aakhiro xusuusto isbedel weyn baa qalbigiisa ku dhacaya geerida dadka dhimanaya xabaalaha la arkaayo waxaasoo dhami qofka waa inay aakhiro xusuusiyaan cumrigan soconaya ee maalin walba inay ay go-ayso ee xaggii ajashi iyo qabriga inoo dhaweynaya noloshii adduunyana inaga fogeynaya qofka muslimka qalbigiisa waxaa iimaanka ku xoogeeyo iimaankiisa ziyaadiya sadaqada inuu sadaqad qofku ilaahay daraadii u bixiyo waxaa iimaanka ziyaadiyo oo kordhiya istimaacu almawaacid muxaadaraadka iyo waanooyinka qofka muslimka ahi inuu dhagaysto had iyo jeeraale waxaa iimaanka markaa ziyaadiya cibaadaadka soomku waa inuu iimaan kuu ziyaadiyo hadduu iimaanba kuu ziyaadin waayo soomkaaga waxba ka si ah salaada aad tukanayso jamiicu alcibaadaat iimaanka ziyaadisa marka waxyaabaha iimaanka ziyaadiya ee xoogeeya waa inaynu ku dadaalo si iimaankeenna isbedel ugu dhaco isbedel waa inuu ku dhaco xagga cibaadaysigeena oo qofka haddii cibaadadiisu ay yarayd bisha Ramadaan waa inuu guntiga dhiisha iskaga dhigo waliba tobanka dambe marka la gaaro kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yajtahidu fi al-ashr al-awaakhir min Ramadaan ma la yajtahidu fi ghayri nabigu cibaadada guud ahaanba waa ku dadaali jiray Ramadaanna si aanu ugu dadaalin bilaha kale ama sidoo bilaha kale ugu dadaalo si ka badan ugu dadaali jiray tobanka dambe ee Ramadaanna dadaalka waa sii kordhin jiray rasuulku kaana idaa dakhala al-ashru axyaa layla wa ayqada ahla wa shadda mi'zara tobanka dambe markay soo galaan cibaado kordhin jiray nabigu habeenka oo dhan buu cibaado ku nooleyn jiray oo ku soo jeedi jiray reerkiisana waa toosin jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam guntigu dhiisha iskaga dhigi jiro camal iyo shaqo cibaado ah ayuu diyaar u noqon jiray marka bisha Ramadaan qofka muslimka waa inuu cibaadad korbsado haddii faralku galow kugu ahaa ama galab kugu ahaa faralkaaga si fiican u gudo oo fi awwal waqti salaadaada tuko waqtiga u horeeya qalbiga iyo xubnaha intaba ka tuko oo aqbili cala Allah biqalbika wa jawaarihika qalbigaaga iyo xubnahaagaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ku qaabil sunnayaasha haddaana tukan jirin sunnayaasha ku dadaal nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi 12 ragcadood oo sunna oo faral ahay qofka habeenkii maalintii tukada bana Allahu lahu baytan fil janna ilaahay guri buu jannada uga dhisaa labada ragcadood salaada subax ka horeeya ayaa ugu fadli badan duhur 4 ka horeysi labana ka dambaysi maghribna 2 ka dambaysi cishaana 2 ka dambaysi sunnayaal kale oo 12 ka dheeraadka ila wajira salaatu duha baa kamida salaada barqadii la tukado ilaa inta samada bartankeeda markay qorraxdu gaadho ka horeysa markay qorraxdu soo baxday waxoogay ay dhulka ka goodo waran qadarkii ilaa samada bartankeeda ay gaadhayso inta u dhaxaysa salaatu duha ayaa iyaduna sharciya nabigeena wuxuu ku magacaabay salaatu al-awaabiin xiina tarmidu al-fisal salaada kuwa alla u noqoshada badan ee waqtiga dadku adduunyada ku mashquulka yihiin iyagu ilaahay xusuusta u cibaadaysanaya waa salaada la tukada barqa kulusha nirgaha yaryar dhashay marka ay raramoodaan ee cagaha marka kulayl ay ka dareemaan haddii dikrigu kugu yaraa bisha Ramadaan fursad qaali xaalkaaga bedel xuska ilaahay subhanahu wa ta'ala farabadi haddii qiraa'atu al-qur'aan ay kugu yarayd bishan waa bishii quraanka la soo dajiyay shahr Ramadaan alladhi unzila fihi al-qur'aan nabigu calayhi salaatu wasalaam qur'aan akhriska si gaar ah ugu dadaali jiray kordhi qur'aan akhrinta sadaqada kordhi amalka saalixa oo dhan ziyaadi
si gaarana waxaan ugu leeyahay dumarka hooyooyin iyo hablaba bisha Ramadaan ee qaaliga yaana idinku dhaafin cunto diyaarin bishani maaha bil hunguri bishani waa bil cibaado weeye dumarku haddii raggiina ay cibaado tagaan iyaguna marna ay afur diyaarinayaan marna ay casho diyaarinayaan marna ay suxuur diyaarinayaan oo intaas waqtigii qaaliga uu ku dhaafo waa khasaare waxaan leeyahay gabadha muslimadda ahi madbakheeda waa inay mixraab ka dhigto iyadoo madbakha ku jirta oo cuntooyinka aynu sheegna diyaarinaysa haddana waa inay tahay mid cibaadaysanaysa sidee ku noqon kartaa mid cibaadaysanaysa waxay ku noqon kartaa mid cibaadaysanaysa inay cuntadan ay u diyaarinaysa dadka sooman waa inay cibaado u niyeysato arrintaasi waa arrin muhima oo ay tahay dumarku inay ku baraarugsanaadaan niyo fiican la kaale markaad afurka dadka sooman u diyaarinayso cashada u diyaarinayso suxuurta u diyaarinayso waxaad arrintaa u niyeysataa cibaado ilaahay aad ugu dhawaato marba wixii aad u niyeysatuun bay ku noqonaysaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi innama alacmaalu binniyaat acmaasha halka laga xisaabinayo laga eegaya waa niyooyinka wa innamaa likulli imri'in maa nawa qof walibana wuxuu niyeystay buu leeyahy haddii aad markaa niyeysato inaad cunto uun diyaariso intaasunbaad leedahay laakiin haddii aad niyeysato inaad ilaahay ugu dhawaato oo cunto diyaarintan dadka sooman aad u diyaarinaysaa cibaado ay ku noqoto iyada lafteedaaba cibaado ah sidaasoo kale inta aad ku jirto madbakha wax kale ha ku mashquulin hadal kale iyo laqwi iyo wax kale inaad dhegaysato iyo qur-aanka ilaahay akhri haddaad dusha ka hayso dusha ka akhri haddii kale qur-aanka dhegayso inta aad shidato ilaahay intaa xus subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar adoo shaqadiina haya xuska ilaahayna dhexwad laba faa'iidaad ka helaysaa shaqaduna way kuugu fududaanaysaa ilaahayna waad ugu dhowaanaysaa miisaanka xasanaadka ayaa lagu saaraya waktiga aad cunto diyaarinta ku qaadanaysana soo koob waktiga oo dham yaanu kaaga dhammaanin shaqada noocaasa cibaadaadka maxdiga cibaado ahaan u barax tiran wakti u reeb hadday noqoto qur-aan la akriyo iyo haddii ay noqoto salaad la tukado salaatu taraawiix oo kale isbedelada la rabo qofka muslimkaahi inuu sameeyo bishan uu kaga faaidaysto waxaa ka mid ah isbedel xagga dhaqanka ah bishani qofka dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa raad weyn bay ku leedahay dabeecaddiisa wax badan bay ka bedelaysaa haddii uu ka faa'iidaysto arrinka noocaasa uu ku talagalo oo uu dareemo waa bishaa lagu yidhi carabkaaga ilaali carabkaaga waxaad ka ilaalisaa laqwiga hadalka aan wanaagsanayn ka xaaraanta ah buuqa iyo qaylada waxaad carabkaaga ka ilaalisaa dadka inaad caydo xataa qofkii ku caay baa lagu yidhi ha u jawaabin waxaad ku tira waan soomane xubnaha kale saasoo kale ilaali qof hadduu dagaal kula soo doonto waa wakti qaaliya ha iska dayicine waxaad ku tidhaahdaa innii saaimun anigu waan soomanay taasaa dagaalka iga celinaysa bishani waa bil qofka akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa tahdiibinayso hufaysa waxay ka saaraysay ka haadinaysaa dabadda ay uga saaraysaa wax allaala wixii aan fiicnayn markaa fursadda qaaligiina way ku jirtaa qofkii ilaahay u hibeeyey dabeecad iyo akhlaaq wanaagsan waa inuu sii kordhiyo bisha ramadaan dhexdeeda oo uu kobciyo qofkii dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo mucaamalaadka dadka uu la leeyahay ama ha noqoto mucaamalada gabadho ay la leedahay zawjkeeda ama ubadkeeda ama ta ay la leedahay dadka kale qaraabadeeda ah jaarkeeda qofka muslimkaahi waa inuu wax ka bedelo fursadan qaaliga oo inuu ka faa'iidaysto oo ramadaan waa inay kaa dhigto axsanu nnaasi akhlaaqan wa arfacuhum aadaaba dadka kuwa u akhlaaqda wanaagsan qof ka mida uguna aadaab sarreeya oo sidaa ramadaan aada isu ilaalinayso ad leeda waan soomanay hadalka xun aad isaga ilaalinayso dadka inaad dhibtaad isaga ilaalinayso arrinta noocaasa waa inaad ka barato in dhaqankaaga oo dhami sidaasi uu noqdo ramadaan marka ay baxdana sidaasi waa inaad kusii socoto saxaabigii la odhan jiray jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhu waxa uu yidhi idaa saama axadukum falyaxfad samcahu wa basarahu wa lisaanu can ilkadib walmaxaarim qofkii marka uu sooman yahay ha ilaaliyo maqalkiisa ha ilaaliyo araggiisa ha ilaaliyo carabkiisa ha ka ilaaliyo beenta iyo xaaraan oo dhan walyadac ada ljaar
jaarka inuu dhibana ha iska ilaaliyo. waxaa soo dhamay akhlaaqdii iyo dhaqankii bay ku saabsan yihiin baleeg. walyalzam isakiinata walwaqaar, ha laazima qofku oo ha joogteeyo dhaqan iyo dabeecada ka dhigto deganaanshaha, xasiloonida, miyirka xagga hadalka, xagga socodka iyo xagga dhaqanka. walaa yajcal yowma sawmihi wa yowma fitrihi sawa, maalinta uu sooman yahay iyo maalinta uu afuran yahay qofka yaana isugu mid noqon. maalinta uu sooman yahay ha ka duwanaato maalinta uu afuran yahay. maalinta qofka uu sooman yahayna raada ku yeelato maalmaha kale. akhlaaqdu iimaankay ka mid tahay iyo qofka dhaqankiisa iyo dabeecad wanaaggiisu. nabigeena calayhi salaatu wasalaam taa inoo sheegay. dadka waxaa u iimaan sarreeya qofka uu akhlaaq wanaagsan, ayuu iimaankiisuna u sarreeya. wax qofka miisaanka loo saaro dabeecad wanaagga iyo akhlaaq wanaagga iyo dhaqan fiicnaantu waxa u culus inay tahay buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay. nabigu calayhi salaatu wasalaam akmal mu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa, mu'miniinta waxaa u iimaan dhammaystiran kooda u akhlaaq wanaagsan. nabi maxamed wuxuu sheegay dadka kuwa ugu dhow maalinta qiyaame rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay dadkii u dabeecadda wanaagsanaa ee u akhlaaqda wanaagsanaa. qofkuna dabeecaddiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa waa inuu dib ugu noqdo, waana wax la toosin karo oo la hufi karo oo waxa khaldan ee aan fiicnayn laga saari karo. ilaahay baa akhlaaqda wanaagsan iyo dabeecadda wanaagsan kugu jeclaanaya, khalqiga ilaahayna waa kugu jeclaanayaan oo qof maxbuuba quluubtu ay ogosha ayaad noqonaysaa. ilaahay baynu subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo ka faa'iidaysiga ka qaniimaysiga bishaasi ramadaan, iyo inuu inagu daro kuwa xaalkooda wax ka bedela ee wanaagga wanaag kusii dara, xumaantana wanaag ku bedela. wasala allahu calaa nabiyina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira. waayo dhowr su-aalood insha allah su-aalaha lasoo qoray ayaynu raacin doonaa. su-aasha koobaad, waxaan la joogaa habaryartay oo caruur agoona haysata, aniguna waxba kama xisdiyo xagga shaqada iyo xagga dhaqaalaha. su-aasha waxay tahay ayaan filayaa yacni wax ma la cuni karaa? asalku waxa weeye xoolaha agoonta ah qofku inaanu cuni karin. ilaahay baa yihi walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii axsan. agoonka xoolihiisa ha u dhowaanina. inaad xoolaha ugu shaqaynaysaan, aada u maamulaysaan sida ugu fiican ee agoonkaa dantu ay ugu jirta mooyaane. marka qofku haddii agoonta uu u shaqaynaayo, xoolaha agoonta shaqadiisuna ay tahay mid ay u baahan yihiin, xoolaha agoonta wuxuu ka isticmaali karaa shaqadiisa inuu dhiganto oo qura. laakiin qofku agoontii isagoo waxba aanu qabanahayn xoolahooda inuu isticmaala ma banaana. wallahu aclam. waayo su-aasha labaad, ibliis ma waxa uu ahaa markii hore inta aanu diidin inuu u sujuudo nebi aadam malag malaa'igta ka mid a? maya, ibliis malaa'igta marnaba kama mid ahayn. cidda uu ka mid yahay ilaahay baa inoo sheegay, jinka ayuu ka mid ahaa. inahu yaraakum huwa qabiilu min xaysu laa tarawnahu. ibliis iyo qabiiladiisa oo jinkiiba way idin arkaan, idinkuna ma aragtaan buuhi ilaahay. mar kale ilaahay wuxuu yihi kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbi. jinka ayuu ka mid ahaa, ilaahay subxaana watacaala amarkiisii ayuu khilaafay oo u hoggaansami waayey. malaa'igta inaanu ka mid ahay waxaa kaloo u daliila ilaahay malaa'igta markuu sifeynaya wuxu uhi laa yaxsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun. sifadooda dhaqanka oo ee joogtada waay waxay tahay ilaahay ma caasiyaan, amarkiisana ma khilaafaan, isaguna uu khilaafay. laakiin amarku ilaahay malaa'igta amray inay nebi aadam u sujuudaan, waid qaala rabuka lilmalaa'ikati isjuduu liaadama, waxaa isagana amarkaasi u noqday mid ku wajahan liannahu kaana maca almalaa'ika. malaa'igta kamu mid ahayn laakiin waa la joogay, walihaada amarku isaga iyo malaa'igta intaba waa ku socday. inaanu ibliis ka mid ahayn malaa'igta waxyaabaa tusinaya waxaa ka mid a ibliis si cad buu u sheegay in laga abuuray dab, in laga abuuray. khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin. aniga waxaad iga abuurtay dab, nebi aadamna dhoobaad ka abuurtay saan ugu sujuuda waa ka yidhi. malaa'igtana maxaa laga abuuray? ma dab? maya. khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kamaa fii muslim. malaa'igta nuur baa laga abuuray. marka adiladaasoo dhami waxay tusinaysaa ibliis inaanu malaa'igta ka mid ahayn, laakiin uu meel kula noolaa oo uu la joogay. waayo salaado faral ah ayaan ka seexday
maxaan ka yeelayaa waxaad ka yeelaysaa waad qallaynaysaa waman naama can isalaati aw saha canha falyusallia idaa dakaraha qofka salaada ka seexdaa marka uu soo tooso waa inuu tukado wakadalika qofka ilaabay marka uu xusuusto salaaddii waa inuu tukado haddii aada ogaan uga seexatay salaada ood ku tala gashay hurdada inay kugu dhaaftana hurdada cudurdaar kuu noqon mayso qof dembaabay baad noqonaysaa intaa waxaa kuu raacaysa inaad ilaahay subxaana watacaala dembigaasi aada uga toobad keentood ka murugooto go-aansato inaanad mar dambe ku noqon islamarkaana aad ka dhex baxdo waayahay dad xanuunsanaya ana lagu duceeyo ilaahay baynu subxaana watacaala shifaa u weydiinaynaa allahuma shfihima allahuma shfihima allahuma shfihima allahuma shfi mardaana wa jamiica marda almuslimiin ilaahay ha shaafiyo caafimaad ilaahay subxana watacaala xanuunka ugu bedelo su-aasha kale meesha aad ku tukato salaada faralka ah miyaad ku tukanaysaa sunnaha mise waad ka dhaqaaqaysaa halka qofku uu ku tukado salaada faralka ah salaada sunnaha ah waa inaanu ku tukan ee uu ka wareego ama waa inuu hadal u dhaxaysiiyo sida nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay muslim uu ku wariyey saxiixiisa waxaana sidaa loo sharciyeeyey si salaada faralka iyo salaada sunna ay u kala soocmaan oo aan loogu qaadan inay cibaado qura yihiin marka laba midkoodun waa inaad samayso haddaad doonayso faral dabadee inaad sunnaysato ta koowaad waxa ay tahay inaad meeshii ka wareegto ta labaadna waxay tahay adoo meeshiiba fadhiya inaad hadasho hadalkana waxaa kaaga filan dikriga haddaad adkaartii akhrido salaada faralkaa dabadeed la sharciyeeyey iyadaa hadalkuugu filan oo intaa dabadeed salaaddii sunna waad ku tukan kartaa halkii aada faralka ku tukatay su-aasha u dambaysa gabadha xaamilada ah iyo gabadha nuujinaysa hadday u baqaan naftooda miyay qallaynayaan mise fidyay bixinayaan haddii ay naftooda u baqaan ama ilmaha ay u baqaan ruqsi ay u haystaan horta inay afuraan wa can ilmusaafiri waalxaamili waalmurdici assawma ilaahay wuxuu ka dejiyey qofka musaafirka ah iyo gabadha xaamilka iyo gabadha nuujisada ah soomka saasuu hi nabigeenu waa xadiidu anas bni malik ilkacbi nasaa-i iyo abu daawuud iyo aimo kaleba way wariyeen haddiise ay soomka awoodeyso oo aanay naftana u baqahayn iyadoo xaamila ama nuujiso ah ilmahana aanay u baqahayn inay soomto ayaa waajib ku ah waxay soo gelaysaa ilaahay qowlkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam dadka aayaddaasi ay la hadashay ayay ka mid tahay haddii markaa nafta ay u baqato ama ilmaha ay u baqato oo sidaasi ay ku afurto maxaa waajib ku ah oo maalmaha ay afurtay bedelkooda laga rabaa sida saxdaa waxa quree laga rabaa waa fideo maalin kastoo ay afurtay inay miskiin quudiso raashin bisil ay siiso oo hal mar uu ka dhergo raashin qallalan haddii ay bixiso mud ay bixiso waa 600 gram nus kiilo iyo wax yar kiilo hadday dhammaystirtana waa fiican tahay inta dheeraadkiina sadaqad bay u noqon doontaa fideedu intaasay noqonaysaa waxaana u daliilay cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu yihi markuu fasirayay qowlka ilaahay uu yihi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu masaakiin aayaddaasi lama nasakhin buu yihi dadka fidyada bixinaya ay la hadlaysaana waa shaykhu lkabiir walmar'atu alcajuus walxaamil walmurdic waa odayga gaboobe gabow awgii aan la soomi karin islaanta la midka ah gabadha xaamilka ah iyo ta ilmaha yar nuujinaysa ee aan soomka awoodahayn waxaa yihi cabdullaahi ibnu cabaas radia allahu canhu alxaamilu walmurdic idaa lam tastatiica asawma tuftiraan wa tuطcimaani walaa qadaa calayhima gabadha xaamilka iyo gabadha nuujisada ah haddii aanay soomka awoodin hadday soomka awoodaan soomkaa laga rabaa weyaan macno haddaanay soomka awoodin oo soomkii dhibaato aanay qaadi karin uu u geysanayo iyaga ama ilmahooda way iska afurayaan raashin baanay bixinayaan طacaam bay samaynayaan qallana laguma laha buuri cabdillaahi ibnu cumarna sidaasuu yidhi taabiciinta qaarkoodna waa ku waafaqeen sida saciid ibnu jubayr iyo qataada cid saxaabada ka mid oo labadaas saxaabi khilaaftayna lama oga markaa sida saxdi waxay tahay gabadha xaamilka oo murdica ah ee u baqda nafteeda ama ilmaheeda gabadhaasi way afuraysaa kadibna fidya ayay bixinaysaa fidyadana in la qadimo maaha waa in maalin walba maalinteeda laga bixiyo amaba se rabadaantu marka ay dhammaato waa in hal mar la wada bixiyo laakiin maalmo aan la gaadhin oo weli aanay afurinba
fidyadoodii inay qadimto maaha oo cibaadada sababteeda lagama hormarin karo fidyaduna waa cibaado sababteeduna waa afuritaanka qofku maalinta ramadaan oo afuray marka iyadoon sababtii la gaadhin cibaadada in la horeysiiyaa mid saxa maaha wallahu aclam. sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi وسلم تسليما كثيرا.